raxiim halkan waxaan rabaa inaan kusoo diyaariyey tix yar oo gaaban oo ka hadlaysa qabyaaladda dadkeena la hadhay oo jidijahadiidka noqotay. qabyaaladda laftarkeediaba waxay noqotay jidijahadiid. magacaygu waa maxamed cali axmed, ku magac dheer abgaan buulo xaawo. waxayna u dhahaysaa sida tan: haddaad soomaaliyey horyaalkeeda afrikiyo hormuudkeedaba ahayd, habsame calanku u sidoo lagaa heebaysan jiray, hagaasaha taagta daran iyo habsaamaad maanta tahay. hagaasaha taagta daran iyo habsaamaad maanta tahay, halkii aan joogni iyo heebidda qaranayn lahayn, adaa magacii hergelay, dadkayguu hoos u dhigay. jabkiyo hooggii kal hore dadkeennu ku haaligmoo ku hoobtay eber ku baxay, haddana weli sii socdaa. waxaan isku hiifnay iyo haraanka halkuu ka yimid, bal aannu ishaybinne caryaa hadda sheegi kara haddaan loo hayn jawaab. anaa ka caddayn harkee, hagaag u dhegaysta oo dadyow hooy oo wax maqal. dhibkii na haleelay iyo hoggii lagu dhacay duraad, waxa u ahaa horseed waa reer hebel iyo qabiil. welina haddana maydaan ka harin, dhabbaad ugu heelantihiin dadkaygu toos hurdada, si uu qaranku u hergelo. qaruumaha hore u maray dayaxa heeladkiisa degay, annana aan u higsanoon u gaarnaa horumar guud. ka hara hayb iyo qabiil hareeraha dunida, iyo haddii carro edag la maray, ciiddan aad haysataan inaan oo kale la helin, heedhaha sooma ogidiin. haddana istaraajiyo shisheeyaha soo hogbaday dhammaantood uu hunguri ka wada hayo oy rabaan, dantuu la haliiliyaa si aanay ugu hergelin. ka hara hayb iyo qabiil midnimadii loo halgamay, naf iyo maal loo huree, xornimadana lagu hantiyey. aan maalna hasheenna iyo heesaha loo qaadi jiray, mid lagu hongoobi iyo boog hoosta ka caabuqdiyo hurgumataasay u noqon. ka hara hayb iyo qabiil ayaan hadalkii ku jaray, sinaba uma hagaagsanee. ka hara hayb iyo qabiil.